Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta hawada naga daawanaysa. Halkan waa channelka wararka ee Dulmidi Tube. Waa maalinimo Khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 9-ka bisha koowaad 2020. Kuna soo dhawaada warka Dulmidida. Qodobada ugu waaweyn ee warka Dulmidida aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Xaaf oo qoraal xasaasi ah oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya u diray beesha caalamka. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo u diray fariin reer Muqdisho isagoo dhaliilay dawladda federaalka Soomaaliya. Afhayeenka xarakada Al-Shabaab oo markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii ay ku qaadeen Mandabay ee gobolka Lamu. Ciidamo xalay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ka fuliyo howlgal qorshaysan. Iyo waliba sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay madaafiic xalay loo garaacay safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq. Waa hagaag daawadayaal qodobadaas ayaa ahaayeen qodobada wararka Dulmidida ugu door karoon imikii tan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Fadlan daawada waxaan naga xasuusin haddaad ku cusub tahay channelka wararka ee Dulmidida ka ilaawin inaad subscribe to saarato gambaleel ku furato si aad ula socoto wararka aan mar waliba soo gelino aad ugu mid noqoto saaxiibada ugu dhow ee Dulmidida Tube. waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawanaysid warka iyo waliba sida wanaagsan ee aad noola socotid mar walba. aynu ku horeeno madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa fariin xasaasi ah oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya u diray xubnaha beesha caalamka ee daneeya Soomaaliya. Qoraalka oo ku qornaa luqadda Ingiriisiga ayuu madaxweyne Xaaf beesha caalamka ugu sheegay in uu wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta kala noqday wakiilashada. Madaxweyne Xaaf ayaa sababta uu wakiilashada ugu noqday wasaaradda arrimaha gudaha ku sheegay in ay dawladda Soomaaliya ku takrifashay wakiilashada isla markaasna lagu fashilmay dhisidda Galmudug loo wada dhan yahay. dhanka kale madaxweyne Xaaf ayaa waraaqda beesha caalamka u qoray inuu magacaabay guddi farsamo ee doorashada Galmudug isagoo dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay Galmudug gelisay qalqal siyaasadeed. warqada uu Xaaf u diray beesha caalamka ayaa timid kadib markii uu dhawaan magaalada Gaalkacyo ka sheegay in ay dawladda ku fashilantay dhismaha Galmudug loo wada dhan yahay isla markaasna ay xoog meesha ugu saartay odayaashii lahaa saxiixa xildhibaanada maamul goboleedka Galmudug. ma ahan markii ugu horeysay uu madaxweyne Xaaf wakiilashada kala noqdo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka. waxa uu sidoo kale sameeyay sanadkii hore kadib waxa la gaaray isfaham inkastoo la ogeyn waxa keenay in uu mar labaad kala laabto wakiilashada wasaaraddaasi. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo xalay hadal ka jeediyay munaasabad lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah isagoona eedeymo kulul u soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya. ugu horeyn Deni ayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay ku fashilmeen amnigii guud ee dalka si gaar ahna magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo uu sheegay in amni darrada ka jirta ay fashil ku tahay madaxda hogaamisa dawladda dhexe. madaxweyne Deni ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka tashadaan aayahooda amni gaar ahaan dadka reer Muqdisho isagoo reer Puntland ugu baaqay in ay kaalin ka qaataan nabad ku soo dabaalida Muqdisho. dhinaca kale madaxweyne Deni ayaa soo hadal qaaday sharciga batroolka dalka oo ay shalay ansixiyeen golaha aqalka sare wuxuuna labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ku dhaliilay in ay ku degdegeen ansixinta sharcigaas. Deni ayaa sheegay in Puntland ay ka digayso ansixinta sharciyada dalka ee aan lagala tashan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka. Puntland kuma qanacsana dib u habeynta ku socota dastuurka dalka ee aan laga talagelin dawlad goboleedyada dalka ka jira. dawladda federaalka waxay iska indhatiraysaa ka qaybgelinta arrimaha dastuurka ee dawlad goboleedyada dalka. waxay jabisay dhammaan heshiisyadii horey loo wada gaaray ayuu yiri madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Siciid Cabdilaahi Deni. madaxweyne Deni ayaa khudbadiisa ku sheegay in maamulka uu hogaaminayo ee Puntland uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo meel kasta oo wada hadal dhab ah uu ku dhex marayo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Puntland waxay soo dhaweynaysaa in ay diyaar u tahay meel walba in ay kaga qayb gasho wada hadal dhex mara dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. waa haddii ay dhab ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni. ugu dambeyntii Deni ayaa shacabka iyo dawladda Somaliland ugu baaqay in aysan dayicin midnimada ummadda Soomaaliyeed. waa sidoo isaga hadalka u dhigay. hoggaanka sare ee ururka xarakada Al-Shabaab ayaa xalay war ka soo saaray weerarkii ay xaddii la soo dhaafay ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ku yaala deegaanka Mandabay ee gobolka Lamu.
afhayeenka xarakada al-shabaab cali maxamuud raage oo ku magac dheer cali dheere ayaa sheegay in ay weerarkii Mandabay ay ku dileen kuna dhaawaceen 17 askari oo Mareykan ah iyo 9 askari oo ka mid ah ciidamada khaaska ah ee dowladda Kenya sida uu hadalka u dhigay. saldhigga lagu magacaabo Kamsimba ayaa ah xero military oo ay leedahay dowladda Mareykanka waxaana ka howlgala boqolaal ciidamo Amerikaan ah oo taliska laga hago howlgalada oo Mareykanku ka wado waqooyiga Kenya. waa goobta ay reer galbeedku ka soo abaabulaan howlgalada basaasnimo ee ka dhanka ah muslimiinta bariga Afrika ayuu yiri cali dheere oo u hadlayay xarakada al-shabaab. cali dheere ayaa sheegay in weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Mandabay uu qayb ka ahaa olole dagaaleedka loogu magac daray Qudus lama yuhuudeynayo kaas oo uu sheegay in lagu beegsanayo Mareykanka maadaama buu yiri oo Mareykanku wali maamulka Yahuuda ku garab siinayo una sharciyeeyay magaalada Qudus si ay halkaasi deegaamo ugu dhigtaan. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale sheegay in uu digniin u jeedinayo shacabka Mareykanka. fariinteena ku wajahan shacabka Mareykanka waxa ay tahay ku seexda kuna soo toosa inta dowladdiinu ay sii wado in ay maamulka Yahuuda ku taageerto dulmigooda ka dhanka ah ehelkeena reer Falastiin ee muslimka ah. ciidankiinuna duulaan ku joogaan wadamada muslimiinta aadan marnaba amni iyo ammaan ku heli doonin gudaha dalkiina ama dibadiisaba. waa hagaag daawadayaal halkaad wararkaasi ka daawanaysaan waa channelka wararka ee Dulmidi Tube. qaraxyo ayaa laga maqlay aaga qadka cagaaran ee magaalada Baghdad iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in laba madfac ay ku soo dhacday nawaaxiga safaaradda Mareykanka. qaraxyo ayaa laga maqlay aaga qadka cagaaran ee magaalada Baghdad iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in laba madfac ay ku dhaceen nawaaxiga safaaradda Mareykanka. dhabaqa madaafiicdan ayaa si xoogan loogu maqlay aaga ay degan tahay safaaradda Mareykanka habeennimadii Khamiista ahayd. booliska dalka Ciraaq ayaa sheegay hal madfac in uu ku dhacay meel 100 talaabo u jirta safaaradda Mareykanka. aaga cagaaran ee Baghdad ayaa amnigeeda aad loo adkeeyay waxaana maalmihii la soo dhaafay xaalad feejignaan ah ku jiray ciidanka ammaanka ee ilaalada safaaradda Mareykanka ee Baghdad. ma jirta ilaa hadda wax khasaare ah oo la soo sheegay oo ka dhashay weerarkan waxaana la sheegayaa in ay qayb ka tahay weeraradan xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo dalka Iiraan oo ka dhashay dilkii loo geystay generaalkii sare ee dalkaasi Iiraan Qasem Soleimani. All in a line, quick as you can, quick as you can. Go like hell. That Toyota that's right on the end, get around the outside of him. Get around the... ururka geeldhaqatada Somaliland ayaa walaac ka muujiyay geela ay dowladda Australia ku leynayso dalkeeda iyagoo ugu baaqay dhammaan madaxda iyo bulshada Soomaaliyeed in laga wada shaqeeyo sidii geelaas loo badbaadin lahaa. war-saxaafadeed uu ku seexan yahay gudoomiyaha ururka geeldhaqatada Somaliland Mustafa Cali Ducaale ayaa sidan u qornaa ururka dhaqashada geela iyo soo saaridda caanaha geela ee Somaliland waxa uu aad ugu xun yahay una cambaareynaya dilka 10,000 ee geela ah oo ku nool wadanka Australia. waxaana halkan ururku baaq ugu diraya madaxda dowladda Australia inay dilkaasi si degdeg ah u joojiyaan kana fikiraan siyaabo kale oo loo xalin karo dhibaatada uu geelaasi ku hayo deegaanka ee ay ka walaacsan yihiin madaxda wadanka Australia. geelu waxa uu bulshada Soomaalida ugu jiraa kaalinta labaad ee noolaha waxaana ku tiirsan nolosha dad badan oo Soomaaliyeed iyaga oo si weyn ugu tiirsan caanihiisa iyo cadkiisaba. waxa kale uu ururku baaq dheer u diraya madaxda kala duwan ee Soomaalida aqoonyahanka saxaafadda iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo codkiisa la maqli karo in ay muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay arinta ugu xun yihiin. ururku waxa uu aaminsan yahay in geelaasi asal ahaan uu ka soo jeedo dhulka Soomaalida oo ah kan uu ku dhaqan yahay geela adduunka ugu badani sidaa awgeed ay tahay in geelaasi dowladda Australia ku soo celiso dhulka Soomaalida si uu u helo daryeel iyo si bulshada Soomaalidu ay ugu faa'iideysato. madaxda Soomaalida iyagoo cod mid ah ku hadlaya waa in ay ka howlgalaan sidii geela loogu soo celin lahaa dhulkiisii markii horeba laga qaaday. ugu dambeyn ururku waxa uu soo jeedinayaa in Soomaalida ku dhaqan dalka Australia ay ka howlgalaan sidii ay maamulka dalkaas u gaarsiin lahaayeen dareenkan iyo sidii loogu fikiri lahaa keenista xal kale oo lagaga kaaftoomo dilka geela.
وهاجاك داوديال intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warka waxaad ka daawanaysaan channelka wararka ee Dulmidi TV intaan warka xiga aan dib hawada u kulmi doono hadduu Allah hawada la ogolaado waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo